kulanti wacan saaxiibada naga daawanaya Somali Channel kuna soo dhawaada qaybtii lixaad ee barnaamijkeena gaaban tijaabi heerka garaadkaada maantana saaxiibayaal barnaamijka hadii aan ku horeeyo jawaabta su'aashii aan shalay u soo bandhignay saaxiibadeena ee ku baxday qaybtii shanaad waxa ay noqonaysaa in aad doorato lacagta $20,000 ah sida inta badan lagu codeeyay dunidan laguna qeexay warbixino la soo bandhigay sababtu waxa ay tahay lacagtu waxay ahayd $20,000 halka waxa la barbar dhigay ee fursada lagu siiyayna ay ahayd inaad toddobaad ku baratid luqad midii aad rabto dadku waxay ku micneeyeen in lacagta $20,000 ah aad ku qaban karto fursad kasta maadaama aad raadinayso horumar aad noloshaada ka samayso dalkaadan aad ka maqan tahay luqaduse ay kugu adkaan karto inaad muddada ku barato isla markaana ay adkaan doonto sidoo kale inaad fursad u hesho lacag intaasi leeg dad badan oo idin ka mid ah ayaa ka aragti dhiibtay waana ku mahadsan yihiin saaxiibadii fikradahooda sida wanaagsan uga dhiibtay barnaamijkeennii shalay saaxiibada maanta nagu cusub ee danayna inay kii shalay daawadaan ha ka eegeen linkiga ama lifaaqa commentiga ugu horeeya ee muuqaalkan saaxiibada kale ah Maxamed Tawane Salaad Shire Siraaji Maxamed Cabdiraxmaan Rabiica Usmaan Zamwan Zamzam Social iyo Ayaan ayaa dhammaan doortay in ay luqadda doorbidayaan halka Deeqsi Maxamed Roodo Muuse Maracade iyo Shucaybna ay doorteen jawaabtii saxda ahayd ee lacagta $20,000 ah markana daawadayaal yaan waqtiga idinku dheeraynin oo aan gudagalno qaybta lixaad ee barnaamijkeena marka uu qofku ugu yaraan qaan gaaro waa hubaal inuu soo maray waayo oo leh wajiyo badan ha wanaagsanaadeen oo ha noqdeen kuwa loo aayo ama ha xumaadeen oo ha noqdeen kuwa laga qoomameeyo waana ay kasii daran yihiin dadka daahaan ka badan 25 sano oo waliba lagu sheego mararka qaar inay yihiin marxaladaha ugu adag nolosha tijaabi heerka garaadkaada maanta waxaan ku soo qaadanaynaa tijaabo aad kala dooran doontaan berritona natiijada soo bixi doonta way ka duwan tahay kuwii hore ee jawaab saxda ah kaliya lagu bixin jiray berri haddii alla idmo waxaa la socon doonta falanqayn kooban oo la xiriirta mid kasta ee ka mid ah qodobada aan maanta idiin soo bandhigayno micnaha waxa aan ula jeedaa in qof kasta midkii uu doorto ay qiimaysan tahay diyaarsan tahayna isla markaana aan soo gudbin doono haddaba saaxiibayaal si feeljigan ila socda su'aashanna ka jawaaba aragtidiina qaybta hoose ee commentiska ku reeba haddii adiga maanta fursad lagu siiyo laba arrin mid dooro midee ayaa dooran lahayd 1 inaad dib ugu laabato waayihii ku soo maray soona xaliso qaladaad ka dhacay ama fursado ku dhaafay iyo 2 inaad horey u socoto oo lagu siiyo nolol iska meel dhexaad ah adiga una kugu filan haddaba midkee ayaa dooran lahayd codkiina dhiibta kuna aragti dhiibta qaybta commentiska si aan birito u shaacino magacyada inta aragti dhiibtay iyo sidoo kale waxa lagu micneeyay jawaabta qof kasta ee idin ka mid ah u bixiyay waad ku mahadsantihiin sida aad markasta nala socotaan aragtidiinana aad u dhiibataan barnaamijkan fiiro gaar ah saaxiibada qaar ee aragtida ku dhiibta qaybta Facebook-ga waxaan ka codsanaynaa inay halkan ee YouTube-ka ku dhiibtaan aragtidooda halka ayayna ka socotaa mar waliba aragti dhiibashada iyo nabadgeliyo